soo dhawaada saaxiibayaal ugu yaraan 107 qof oo tahriibayaal ah isuguna jira haween caruur iyo sidoo kale dad waayeel ah isla markaana u badan Soomaali ayaa laga soo daayay xabsi ku yaala magaalada dhacda koonfur bari wadanka Liibiya waxaan kula wadaagayaa dadkan tahriibayaasha ah ee halkaasi dabcan ay ku haysteen kooxda magafayaasha iyo sidoo kale markaasi talaabooyin ay qaadeen ciidamada Liibiya adiguna soo dhawow aan ku bilaabay ciidamada dalka Liibiya ayaa shaaca ka qaaday inay awood ay ku soo furteen ugu yaraan 107 qof oo markaasi tahriibayaal ah kuwaas oo dabcan markaasi isugu jira haween caruur dhalinyaro iyo sidoo kale dad waayeel ah dadkan ayaa la xaqiijiyay inay badankooda ka soo jeedaan Soomaaliya afayeen u hadlay ciidamada Liibiya gaar ahaan waaxda CID-da ayaa waxa uu sheegay in dadkan muhaajiriinta ah muddo 7 bilood ah halka lagu haystay isla markaana ay doonayeen inay u sii gudbaan qaaradda Yurub waxa uu sheegay dadkan inay badankooda ka soo jeedaan wadamada Afrika ee Saxaraha ka hooseeya laakiin tirada ugu badan ay ka soo jeedaan Soomaaliya hase yeeshee ay hadda gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka ee wadanka Liibiya kuwaas oo markaasi dabcan si awood kaga soo furtay kooxdii magafayaasha ah ee muddada 7 bilood ah ay gacanta ugu jireen dadkan muhaajiriinta ah ciidamada Liibiya warkan ka soo baxay waxay sheegeen inay xilli habeen ay weerar ay ku qaadeen xero ku taala magaalada Kufra oo lagu hayay dadkan markaasi muhaajiriinta ah waxana ay sheegeen ay dadkani u badnaayeen haween iyo caruur isla markaana sidoo kale ay qayb ka ahaayeen dad waayeel ah oo rag ah waxay sheegeen in muddo markaasi gacanta ay kooxdan magafayaasha ah ay ugu jireen oo halkaasi lagu hayay ciidamada ammaankuna ay si awood ah hadda ugu soo furteen iyagoo sheegay inay ugu dambeyn markaasi ay gacanta u geliyeen hay'adda socdaalka ee IOM muuqaalo iyo sawirro ay baahiyeen ciidamada dalka Liibiya gaar ahaan waaxda CID-da ayaa lagu arkayay ciidamada oo burburinaya gurigii lagu haystay ama sida awoodda markaasi dadka lagu haystay muhaajiriinta ah iyagoo markaasi dabcan sidoo kale sawirrada ay ka muuqdeen dhaawacyo iyo sidoo kale markaasi jirdil soo gaaray dadkan muhaajiriinta ah ee halkaas ku haysteen kooxdan magafayaasha ah waxa ay soo bandhigeen dadkan oo qaarkood markaasi lagu sii daadgureynaya gaari ambalaas ah si markaasi loola tacaalo xaaladooda waxana laga soo warinaya waxay tahay in dadka qaarkood ba ay markaasi xaalad adag ay ku jiraan magaalada Kufra oo ah halka lagu haystay muhaajiriintan u badnaa Soomaalida ayaa waxa ay 1712 kilomitir ay u jirtaa caasimadda wadanka Liibiya ee Tripoli Liibiya ayaa noqotay marin muhiim u ah dadka markaasi dabcan ka cararaya colaadaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ka jira qaaradda Afrika kuwaas oo doonaya inay gaaraan qaaradda Yurub si ay u helaan nolol ka duwan midda ay kaga tageen wadamada qaaradda Afrika haddaba daawade sidaad u aragto aragtidaada qaybta hoose ee faalada inoogu reeb isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxa ka howlgasha Dr. Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurrada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamuugaan Dawo Clinic